magaalada Kismaayo ka furmay ciyaaraha Serie A oo markaasi ay ka soo qayb galeen furitaankii mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Maxamed Xuseen Salaad. Garoonka kubadda cagta ee Wama Stadium ee magaalada Kismaayo ayaa waxa dib loogu furay ciyaarihii Serie A furitaanka ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda ciyaaraha Jubbaland uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Jubbaland Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed iyo wakiilka soo xiriir kubadda cagta Soomaaliya Mudane Cabdisamad Sheekh Cabdi Qaasin. Furitaanka ayaa waxa ka hadlay Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Jubbaland isagoo ballanqaad u sameeyay dhalinyarada Jubbaland oo ballanqaad inay qalabadka isboortiga heli doonaan. marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka Jubbaland shaqada adag ee qurxoon ay soo qabteen iyo heerka ay maanta soo gaarsiiyeen aad iyo aad uga mahad celinaya waxa kale oo mahad celinaya xiriirka kubadda cagta federaalka uu ka joogo la taliyaha wasaaradda Mudane Cabdisamad waxaana leenahay aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay wasaaradda dhalinyarada hawsha aad wadaan waxaana si ballan qaadaynaa inaan idin garab istaagno waxaan fariin u dirayaa dhammaan bahda isboortiga dowlad goboleedka Jubbaland waxaana leeyahay isboortiga himilooyinka ugu waaweyn oo ka rabna waxa weeye in lagu barbaariyo akhlaaqda in lagu barbaariyo wadaniyada in lagu barbaariyo kartida in lagu barbaariyo hufnaanta iyo wadajirka iyo waxqabadka da'da ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ah in lagu gaaro himilooyinka waaweyn ee midnimada iyo nabadda. sidoo kale waxa goobta ka hadlay Cabdisamad Sheekh Cabdi Qaasin isagoo u hambaliyay maamulka Jubbaland horumarka wanaagsan ee ka gaareen kubadda cagta. aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga oo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya wakiil ka ah horumarka ay gaartay xiriirka kubadda cagta ee Jubbaland waxaan aad ugu faraxsanahay inuu idin soo gaaray qalabkii loogu talagalay horyaalka 2019 ka xiriir ahaan waxaan ballan qaadaynaa horumarka aad idinku gaarteen inaan gaarsiino isteediyada kale ee Soomaaliya. ugu dambeyn labadii koox ee lagu daafuray takadaha iyo himilay waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta takadaha Maxamed Xuseen Salaad warbaahinta Star magaalada Kismaayo.